shirkadda microfinance ama lacagaha yaryar ee isahal oo runtii noqotay shirkaddii ugu horeysay ee garab joogsata taageerta sektorka sportiga gaar ahaan ciyaartooyga caasimadda oo ku taageertay inay ugu yaraan dhiirigelin casho sharaf u diyaariso saasoo kale agabyada sportigan waxyaabo ka mid ah inay ka caawiso runtii waxaan aad u danaynaynaa dawlad ahaan sektarada private sector-ku ama gaarka loo leeyahay sida wadamada adduunkaba ka jira inay daneeyaan dhaxgalaan sportiga iyo dhalinyarada laba dhinac bayna u dhaxgalaan kow inay samaystaan kalaabya iyagu leeyihiin caasimadda ganacsatada waaweyn baa runtii joogta ganacsada kasta hadduu samaysta hal club ama koox oo kubadda ku matasha waxaan helayn kalaabyo waaweyn oo magaalada ka soo baxa isla markaana caalamka ka tartami kara saasoo kale dhalinyarada inay si kale u dhaxgalaan oo inay shaqo abuur u sameeyaan oo runtii microfinance-gan iyo kuwa kale waxa ka helay shaqo abuur aad u badan bay dhalinyaradu ka heshay marka inay ku dhiiradaan inay dhexdiina soo galaan oo idin caawiyaan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa meel fiican baad soo gaadheen kubadda si fiican baad u taqaanin cid idinka taqaano oo ku jirta tartankan ma jirto hal arrin uma kala dardaarmaya arrintaas waa arrinta akhlaaqda la xidhiidha kubaddaadu hadday fiican tahay haddaad goolal badan dhalinayso laakiin haddaad ethic problem leedahay qofna kuma dhiiranayo inuu adiga kusii taageero marka maalmihii u dambaysana arrintaas si fiican baan u arkayni arrintaas ma rabna inaan mar dambe aragno serious ciyaartoo iyo tababarihii ciyaartoo iyo calanwadihii ciyaartoo iyo siidhiwadii oo la kala jiidayay inaan garoomada kusii aragno ciyaartooga magaalada ay sameeyaan ma rabno arrintaa waa red line weeyaan totalina sanadka dambe inuuna qofka kala dambe oo ethic la problem la xidhiidha inuuna ka soo qaybgelayn ciyaaraha maamulka lejigan idiin sheegay seriously caasimadii baa tihiin waxa weeyaan akhlaaq baa idinka rabaa idinka deganaan baa idinka rabaa wanaag baa idinka rabaa idinkoo idinka qaldan yahay baa idinka rabaa inaad sii dhaqaaqdiin laakiin maalmihii la soo dhaafay waxa maanaan arkayn aad baan uga cadhooday anoo ciyaartiina jecel oo ku raaxaysanaya in mar kasta aad kaararka noocyadooda kala duwan idinka la idin siiyo arrintaas waa serious weeyaan waa red line weeyaan arrintaa ka digtoonaada haddii laydinka soo badiya xataa waan ku faraxsanahay culays male dhalinyaradaydii baa tihiin hadda kahorna waxaan idhaha haddaad soo badisiina dhalinyaradaydin baa tihiin haddaa laydinka soo badayana aniga kuwaygin baa tihiin meella kuma kala tagayn laakiin waxaan aad u diidayaa idinkoo badiyey haddana inaan ethic problem akhlaaq wax akhlaaqda la xidhiidha kubadda in laydinku soo sheega ma rabo waxay dhaanta waa laga soo badiyey oo la yidhaahdo marka arrintaa akhlaaqda la xidhiidha seriously hadda ka bacdi ma sii daawan karo waa arrin red line weyn waa inaad iska saxdaan sida kale koobkood qaadaysiin I'm sure arrintaa insha Allah waa aad baan ugu dhiiranahay inaad koobka qaadi kartiin oo awoodeedii leediin laakiin arrinta akhlaaqda waa inaad iska ilaalisaa isla halgantaan garoonka annagu ma soo dhex gali karno qof markuu xanaaqo barayaa ku xanaaqo kabtan ku xanaaqo qof kasta xanaaqo annagu garoonka awood ma leelina soo dhex galo laakiin kuwa kale ku jirnada inay raacaan ma iyaguna budka la wada qaataan mid markuu xanaaqo kale inuu dejiyo loo baahan marka arrinta ma jeclina canaanta dhalinyaratiin laakiin arrinta waa arrin soo noqnoqotay la iska ilaaliyo sida kale aad iyo aad baad mahadsantihiin inaad finalka gaadhaysaan oo weliba koobkana soo qaadaysaan waan aaminsanahay annaguna idin garab taaganahay aad iyo aad baad mahadsantihiin